already waxay soo gaareen war weyn oo abaabul la wado oo Somaliland amnigeeda ka dhana waxa xitaa loo adeegsan doonaa nin philosophy ina balaga duuba amniga Somaliland in ay ka dhex kacaan urdiimeedyo in mataqaana shacabku ay kacdo sameeyaan lafteeda laga shaqeynaya halkaas iga qora sababtan aan ku sheegaya dawladda Sacuudi Arabiya cambaaraysay falki waa dawlad lacag loo qani ah dawladda Masar baa cambaaraysay dawladda Qatar baa cambaaraysay dawladda mataqaana Turkiga cambaaraysay urur goboleedka igaad baa cambaareeyay midowga Afrika cambaareeyay fiiri dalka islaamka ee lacagta lahaa oo dhan waa cambaareeyeen maxaa la sameey karaa marka isku fahamsana okay maxaa socdo geopolitics la isku haystaa dalka islaamku ka baqaayay marka horeba Israa'iil haddeertan haddii Soomaaliya taas soo gal maxaa ku dhici kara xuutiyiintu maxay sameey karaan Iran maxay sameey kartaa aqli waa inuu shaqeeyo fiiri okay dhinaca kale aan fiirino marka dhinaca kale aan fiirinaynaa Mareykanka waxay aqoonsadeen Israa'iil iyo Taiwan bay aqoonsadeen aqoonsiga Taiwan muxuu u soo kordhiyay ee Mareykanka aqoonsaday waddanka dawladda ugu weyn caalamka waa Mareykanka Taiwan bay aqoonsatay Taiwan aqoonsiga la siiyay muxuu soo kordhiyay ama soo kordhiyay okay ani marka dadka wax magartada gaar ahaan qabiilka ka dhashay hawiyo waxaan leeyahay reesha isaaq nacab ama jacel yuhuud ma arag waa dad idinka lamida inaad caysaan iyo ina calankooda caysaan qalad bay ku tahay haddii qalad oo meesha ka dhacay qaladka meesha ka dhacay xukuumadda iskale haddii siyaasad xumo dhacday xukuumadda iskale shacabku ma laha qabiil iyo isaaqna ma laha anigu dad xuna meelaha ka nahnahla dhageysto ama kuba hadda magac isaaq sheegaha aadaano ama kuba hawiyaha qalbadu ay jaban tahay aadaano anigu ma dhageysto waxaas ma dhageysto anigu waxa saxda aan ka hadlaa okay waxa saxda ah maxay tahay shakhsi waan ay marka dhinto Abdurrahman Ahriq xabs qabriga la geli maayo xashiq la geli maayo Saciid la geli maayo tira baday timaado ana la weydiina su'aalaha akhro intaan nikiyo oo qolowna camleeyo aakhirada ku seegi ma waxaan weydiinaa qof kasto annaga naga mid ah salaada markaa dukanaysiin oo suuratul faatiha akhrinaysan ragca kasta markaa suuratul faatiha akhrinaysan maxaa dhahdaan maxaa ku jiro ihdina siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم معيت إلهي وحن كان مين قلني إلى أنا مرين وضد يهودي النصارى متى كلامك إلهي مية مركا يهودي النصارى يا وي قفك راعي يا وي قف إيمان لما راعي قف عقيدة لما راعي قف مسلم أشهد حكم السمي دي ددنا واسك جيران ادونكو نبي صلى الله عليه وسلم شيغا رسمنك يهودي النصارى اي ددكا dad badan oo islaamihi ay iska iibin doonaan ay iska gidi doonaan wala shay fiiri ma taqaanan Abraham accord ma taqaanan Abraham waa diintii la nasaqay ee waxa weeye diinta Nabi Maxamed ee kitaabka Furqaan lagu bedelo way oo la yiri diimaha saxo kama jiraan Ibraahimiyada wala ma jirto waxa jira ma laha leeyo waa dimi markaa gaalnimo hadaa tiraado ana qof muslima Abraham accord ama diinta Ibraahimiyada ayaa wax ku saxiixday waa gaal qayb ka gaalnimada kamid ah wadan baa islaamha sabi arabta ma qamiisada weyno afka ka sheegta islaamka yaa sabi markaa kubaasi faqad kafar way gaaloobeen marka waxaan rabaa wixii uu dhahay Sheekh Mustafa iyo wuxuu dhahay Sheekh Dir waan ayo soo raashic saaq maaha soo culimadu waa weyn raashic saaq maaha waxay dhaheen baan rabaa inaan daawodsiyo si aan saaq loogu xad gudbin wixii ka dhaheen arintan
يا رادينيا وإن داوسينيا علماء الرشح ساق وحيدهن أوكي عم الله اللي بلدي نقار كميدا هوله سوق يا كيف اي دون حقوق مدينة اللي بلدي نقار كميدا هوله عربت با يهودا way la xidheena inaguna aan la xidhano dadka muslimiinta dulmiyay dalkooda ka qaaday ee iyaga qaxiyay ina xiriir la yeelataan iyo gacantooyo dadka saasay waa daalimiin bulahay subhanahu wa ta'ala dadkanina waxay moodayaan ballan iyo ahdi ay la galaan yahuudiin ay ku joogayaan ilaahay aad uga warramay ballanta yahuudu inaan ahayn mid la isku halayo lagu xisaabtamo aw kullama ahadu ahda nabadahu fariiqun minhum bal aktharuhum la yu'minun ballan kastay galaan dabada ka tuuraan buu lahay maqaaladooda waxay laysa calayna fil ummiyina sabiil ummadaha annaga naga soo haray waxooda haddaanu qaadano wadana lagu ciqaabo na lagu cadaabaaba ma jirto waa xalaal quraanka bay noo sheegayba in yahuudda la isku arjiskareeyo la isku dhaweeyo oo lala saaxiibo oo ay isleeyihiin malaha hogaamintii caalamka hadda door weyn ku leeyihiin markaasi ay idinku kordhiyaan magac iyo manfac iyo mansab balada yahuud maanta ka ag dhawaada maadaama Yurub iyo Mareykan xambaarsan yihiin xildhibaanadeena qaar ka mid ah oo leh هذا maxaa fahana marka waa sheekh dir oo ka hadlaya qodobkaas culumadii kala raadinaya marka saaq loo ma caay karo rasuulka dadka qofkii madaxda Soomaalidu waxay dhahaan laan dheeraan iyo reer baan ka soo jeednaa reer haday cidi ka soo jeedo yuhuudda ka soo jeeda waayo aabahood hadduu waxaan inaan wax Soomaali sabi waxaan idin raadinayaa suga sugaan raadiya culamadii raadinaya dadka adoon caayin si yar ayaa wax loo fahamsiiyaa ummadda waa caayaysa maqaan sabab dadku caayaysa culimada Puntland ee xildhibaanadeena qaar ka dadweynaha Soomaaliland oo dawlad iyo shacabba madax iyo mijaba haddaan maanta waxaynu ku sugannahay dib looga noqon waxaynu ka cabanayno wax ka daran baynu halis ugu jiraa waynu cudna ay reer bani Israa'iil waxa weeyaan lagu yiri markii la ciqaabay ee dhibaatooyin badani ku dhaceen haddaad ku noqotaan wixii annana waa ku soo noqonanaa ciqaabkayagii taasaa ummad walba iyo cid walba u taalla waynu cudna waa layna imtixaamay oo dhulkeena hadcad baynu ka dhaqaaqnay maantana waynu imtixaamanahay oo bari iyo galbeedba dab ay naga baxaya laakiin waxaa soo dhami waa waxayna ku galabsano leenaga goynayo walaa yadlimu rabbuka ahada kulligeen bahdi la toobad keeni waayo oo ilaahay diintiisii bannaanka dulcad iyo daruuriyadoo la joogo lalaha ilaahu waanu ku dhaqmi haddaanu ku noqono maanta si dhaba haddii loogu dhaqmi waayo waxa suurowda dhirbaaxadii hore idinku dhacday tuka daran idinku dhacda waa suuragal dadweynaha Soomaaliland oo dawlad iyo okay sugo waxaan sunayaa sugo qof baa wuxuu soo qarba taqaanin video sheekh dirri waa old video sheekh dirri wuxuu sheegay ma taqaanin